كل برا علماء ينورون يا هل قضبان كدار مركب dadka qayb baa la ogol yahay inay afuraan haday afuraanna waxba laga rabaa dadka afuraya bisha ramadaan ee sharcigu u fasaxay waxa weeye qofka safarka ah qofka xanuunsan ee xanuun la soomi karin qofka hooyada ilmaha uurka leh midda nuujinaysa midda caadada qabta midda dhiigga umusha ku jirta nuujinaysa iyo umul ku jirta qasab ma inay isku mid noqdaan haddiiba ilmihii umushi dhiiggii ay ku jirto ilmihiina ka dhintay sooma dhici karo in waxba nuujinayn hooyada ilma ma nuujinaysa umul bay ku jirtaa laakiin midda umusha ku jirta saasaa loo yiri qofka waayeelka ee da' la soomi waaye intaas marka la isku celceliyo si kooban waa laba qaybood marka laga eego maxaa loogu ogolaaday sababta loogu ogolaaday inay afuraan maxay tahay waa laba qaybood dad sababta loogu ogolaaday sabab waqti go'an la tahay oo laga baxayo duruuf dhammaad lahoo laga baxo darteed dad loogu ogolaaday iyo dad duruuf aan dhammaad lahayn ay soonka u diiday dadka ay duruufaan dhammaad lahayn u diiday haddana ma soomi kare dibna kama soomi karo waayeel ama qof xanuunkiisu soorayn lama rajaynayo la yidhi hadda ma soomi karo goor loogu dibdhigo oo duruuftan way dhammaan la filayana ma jirto qofkaasi hadda ma soomi kare dibna kama soomi karo bedel buu bixinayaa oo maalintiiba miskiin buu quudinayaa ama raashin karsan buu samaysiinayaa bisha aakhirkeedu hal mar jimlayn karaa dhexdeedu dhowr jeer ka dhigi karaa maalin walba hal miskiin uu ka dhigi karaa raashin bisil buu siin karaa mid cayriin uu siin karaa haddana mid cayriin inaan siiyo rabo 625 garaam weeye maalintiiba haddaa 30 beri ku dhufato 19 kiilo wax yar dhima weeye 100 garaam iyo xasaas dhiman baan u maleynaya haddaba haddaa rabtaan ku dhufan 625 garaam oo 30 beri lagu dhuftay 18 kiilo iyo jajab waaye jajabti waa iga maqan qof kasta marka xanuun joogtaan waayeel iyo da' duruuftuu la soomi waayey waqti ay daba dhammaanaysa aan lahayn xukunkiisu waa fidye iyo cunno inuu bixiyo dadka duruuftoodu kooban tahay inna daliil cad uma hayno inta laakiin aan daliil sharciga u hayno qadaa laga rabaa qofkii musaafirka ahaa iyo qofka xanuun marada haddii lagu yidhaahdo caadi ahaan waa xanuunadan caadiga nolosha ka midka ee marna la xanuunsado marna la roonaado wey labadaa qur-aankaa sheegay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhra ay qadaynayaan labadaa daliilku waa inoo sheegay duruufta ay u soomeen soon ku afureenna waa duruuf xanuun laga caafimaadayo iyo safar laga nagaanayo laba kalaan haynaa gabadha caadada qabta iyo tan umusha ahna umul darteed ahna iyagana way qadaynayaan caaisha waa kii la yidhi maa baalu lxaa'ili taqdi sawma walaa taqdi salaa salaada soo qaleen lama dhihin maxaa soonka loo yidhi annaga saasaa nala amri jiray waqtiga nabiga idriis radi allahu canhu ardaahu wasala allahu alayh wasalam afartaas oo duruuftii loogu ogolaaday duruuf waqti go-an la tahay markay duruuftii ka baxaan caadadu ka dhammaato safarta uu ka dhammaado xanuunkii ka roonaado umusha ay ka baxdo bay soo qadeen laba qolo inay afuri karaan waa haynaa maxay samaynayaanna ma hayno waa gabadha uurka leh iyo midda nuujinaysa labadaasaa darteed u afurtay inay afuri karaan waa laynoo sheegay laakiin maxaa laga rabaa laynama dhihin labada qolo keen raacinaa haddaan isweydiinno ma qolada qadaynaysaan raacinaa mise qolada fidye cuntada bixinaysaan raacinaa waxay u baahan tahay sida saxda inaan isweydiinno sababta loogu ogolaaday
ma kuwan dhammaanaya ee waqtiga go-aan leh bay la mid tahay ka mid tahay mise kuwan kale ka mid tahay uurkuna waa dhammaadaa nuujintuna waa dhammaataa saa darteed musaafirka iyo mariidka iyo xaa'idka iyo umushi bay la mid tahay iyagana qadaa laga rabaa sida saxda qiyaasan laa nasan intaas